qoraal la soo dhigay bogga Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska waxaa lagu sifeeyay in go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku ceyrisay ergeyga qaramada midoobay u qaabilsanaa arrimaha Soomaaliya Nicholas Haysom uu ahaa go'aan ka soo baxay hal dhinac oo kaliya sida lagu yiri warka lagu qoray Twitter-ka wasaaradda arrimaha dibadda. qoraalka waxaa lagu muujiyay in dowladda Faransiisku ay taageero buuxda u hayaan ergeyga qaramada midoobay ee arrimaha Soomaaliya isla markaana uu ka mid yahay mas'uuliyiinta xushmada loo hayo kuna guuleystay dadaalada ku aadan nabadda iyo xilka uu hayo qaramada midoobay iyo tan dalka uu ka soo jeedo ee Koonfurta Afrika. wasaaradda arrimaha dibadda ee Faransiiska waxaa kale oo qoraalkeeda ay ku xaqiijisay inay taageero buuxda u hayaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa wada shaqeynta ay la leeyihiin ee ku sugan gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ay ku jiraan Midowga Afrika iyo Midowga Yurub oo ay sheegeen in ay kaalin muuqata ka qaateen sidii deganaansho loogu soo dabaali lahaa dalka Soomaaliya. si kastaba ha ahaatee dowladda Faransiiska oo xubin ka ah 5 wadan ee joogtada ah ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxay u muuqataa mid si cad uga soo horjeesatay go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya. inkastoo xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres uu aqbalay go'aankii dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku ceyrisay ergeyga qaramada midoobay u joogay Soomaaliya Nicholas Haysom kaasi oo xilkiisa hayay tan iyo bishii December ee sanadkii tagay 2018.